waa goob aad ku baranayso information technology-ga ama IT-ga. waxay ku haysaa programmo kala duwan sida diploma 6 bilood ah oo IT ah, networking 3 bilood ah, programming 3 bilood ah iyo waliba security 6 bilood ah. diplomada 6 bilood ah waxaa lagu qaadanaya casharo kala duwan oo aad u muhiim ah oo ay kamid tahay overview of computer science oo maada aad u muhiim ah. waxaad baranaysaa applicationo kala duwan ay kamid yihiin MS Office-ka, multimedia iyo kuwa kale badan. waxaad baran doontaa programming-ka oo ay kamid tahay C++, VB.NET iyo wixii lamid ah. website ayaa samayn doontaa adoo isticmaalaya HTML, JavaScript iyo waliba jQuery iyo WordPress iyo kuwa kale tiro badan. waxaa baran doontaa sida computerka loo furfuro, waxaa baran doontaa networking iyo isku xidhiidhka computerka basicskiisa, waxaa baran doontaa operating systemska sida Windowska, waxaa kaloo baran doontaa projects badan ayaa ku samayn doontaa meelo kala duwan oo projects ah oo programming ayaa samayn doontaa. waxaa baran doontaa advanced networking oo 3 bilood ah. advanced networking-ka waxaa kamid ah inaad barato networking-ka basicskiisa ama fundamentalskiisa. waxaa kaloo baran doontaa TCP/IP oo ah qayb kale oo muhiim oo kamid ah network-ga. waxaa baran doontaa IP version 4 iyo IP version 6 oo practical ah oo xisaabtoodiina wata. waxaa kaloo aad baran doontaa CCNA qaybaheeda kala duwan sida ICND1 and ICND2. labadaaba waa ku baran doontaa course-keena networking-ka. waxaa intaa inoo dheer programming-ka advanced programming and databases oo 3 bilood isna waxaa lagu baran doonaa luqado kala duwan sida luqadaha waxaa kamid ah Visual Basic ama VB.NET, waxaa kamid ah C#, waxaa kamid ah JavaScript, waxaa kaloo kamid ah Java, waxaa kaloo kamid ah oo aan baran doonaa C++, qaybaha database-ka SQL, MySQL iyo Oracle ayaa baran doontaa haddii aan la idmo. qaybta security-ga ama training-ka security-ga waa 6 bilood, isagana waxaa lagu qaadan doonaa waxyaalahan soo socda. waxaana kamid ah security basicska ayaa lagu bari doonaa, waxaa kamid ah ethical hacking, waxaa kaloo kamid ah software security, waxaa kaloo kamid ah data security. intaasaa ku baran doontaa. bismillahirrahmanirrahiim. waan magaca taxliim aadam. maanta waxaan rabay inaan idinla wadaago xog ku saabsan barnaamijka hadda daawateen. waxaan rabnay barnaamijkan in ummadda uga faa'iideyno cilmiga IT-ga. LasTech weeye oo LasTech maaha, waa LasTech Academy. LasTech Academy waxa weeye barnaamij aan ugu talagalnay inaan kor u qaadno IT-ga iyo barashadiisa bulshada dhexdeeda, maadaama aad u yar yahay oo bulshadana aanay aad hadda barashadiisa moodeen dib uga yara dhaceen. haddana qof walba uu haysto telefoon smartia iyo wax walba. barnaamijyadan hayno kor ayaan kusoo xusnay. waxaan haynaa diblomooyin 6 bilood ah. waxaanana qofka u ballan qaadaynaa inuu qofkaas u noqdo qof waxa uu bartay ka dhabayn kara oo samayn kara oo awood u leh inuu markaa jaamacad semesterka labaad kasii bilaabo. waxaa bilaabi karaa dadyowga nooc walba leh, bilow, dhexdhexaad iyo weliba kuwa sareba. barnaamijyo kala duwan baan haynaa. saasoo daawateen. waxaan rajayn doonaa haddii alla inaan ugu soo biirtaan. waxaan rajayn doonaa haddii alla inaan LasTech technology aad taageertaan. waxaana soo wadaa barnaamij online ah bishan 3 oo online-ka aad kala socon kartaan programyadeena kala duwan. marka waxaan idin rajaynayaa haddii alla inaan soo socono. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. shuruudaha ardayga laga rabo waxaa kamid ah 1 ardaygu inuu haysto computer, 2 waxaa kamid ah inuu isticmaali karo computer, 3 waxaa kamid ah inuu heli karo waqti uu ku barto courseska. waxaa kamid ah inuu diyaar u yahay inuu bilaabo jaamacad kadib marka uu dhameeyo waxbarashada diblomka ah. waxaa kamid ah inuu kamid dhalin karo waxbarashadan, inuu rabo waxan inuu ku shaqo tago cilmigan IT-ga. tirada ardayda hadda la qaadanayo kaliya waxay ku egtay 20 arday oo kaliya. waxbarashaduna waxay bilaabmaysaa maalinka axadda ah ee fooda inagu soo haya oo ku beegan 12 bisha 2019. adeegyada kale ee uu qabto LasTech Academy waxaa kamid ah 1 samaynta website-yada, samaynta
databaseska kala duwan sida jaamacadaha, iskuulada iyo waliba xarumaha ganacsiga. waxaa ka mid ah inay ku rakibayso CCTV-ga kaamarooyinka guryaha, ilaa saaridda kombiyuutarada haddii ay dhibaato ka haysato, qabashada domainka iyo waliba hostiga. wixii intaas dheer waxaad kala xidhiidhi doontaa telefoonada, emailada iyo waliba website-ka hoos ku qoran.